markanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh. kan soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku saynsaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xidhiirka dadweynuhu heerarkii uu soo maray. sideedana dhaqamada aad mooddo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid a xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. inkastoo ay xoolo raacata u badnayd ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa, haddana soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin. kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen. muddo qarniyaal ah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. inta si aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaanduulaha u noqonaya, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gebagabo la soo noqonaya. ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen. isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiidha goorta la dhaqaaqaayo, halka la abbaarayo iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. colku mar waa soo guulaystaa, marna wuu soo guuldaraystaa, oo isagoo aan xoolana soo helin ragna lagala haray ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka soo duulay. marka uu guulaysan yahay waa marka qoladii uu ku duulay uu dul tago oo inta weeraro uu geerashooda horta soo marsado, kadib markuu kaga adkaado raggii dhaqay ee iska lahaa. colkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaas ula cidgalo. macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu ka soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. haddii aanu sidaas yeelin wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rag kalaayaan. si aan taasi u dhicinna wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex sooci jiray qayb inta colweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. waa ciidan aan tiro badnayn oo inta la hubo af soomaaliga 3 magac ku leh. mar waa raacda reeb, mar kale waa heegan, kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. colkaas geela wataa markay is yidhaahdaan alla ilaahay waa idin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen. macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan, maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan, ayay isa siin jireen. kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ay u oggolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. lahaanshihiisa markii la yidhaahdo, geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo idil. goobtaas uu ku gebagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay ka soo saari jireen awr oo colku qasho. waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo. habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koramadii la dhuun muday. habeenkaas oo idil baa kuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. habeenkaas oo idil bay caanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan
magowsi iyo qurquraba kaga haagaan oo markay dharagdhacsadaanba ku noqonayaan. tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale. dhacdooyin la xidhiidha dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la isxusuusinayaa, waa la isximaarinayaa. hebelow shalay sidaan waxyeelayay ma arkaysi, sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd, adigu waad baqday iyo ma baqina adigaa cararay. hadalla caynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku tuurtuurayaa. dabadeedna kortoogaha mooyee habeenbarkiibaa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gedi cad u dhacaa, isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. waaguu kolkuu beriyo ee lasoo kackaco lana hamuun tirto ayay ka bannaan geela soo tubaan. ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. hase ahaatee intaan hawshaas la gudagelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay. mar walba oo geela xabbaadha ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto, xeer aan la iska indhatiri jirin. waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgeliso. raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulud dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela ka qaadan doono. waxaa raggaas ugu mudan loona horraysiiyaa ammaanduulaha. waxaa loogu yeedhi jiray intuu geela dhex gala inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay. waxaa xigi jiray laba halaad oo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. waxaa xigi jirtay hasha xirsixidhka oo la siin jiray markii uu duulayey wadaadkii colka u xirsixidhay ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qurxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maansayahanka reeruhu uu gaar isaga lahaa. dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saanyin jireen. qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xirayd. geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. hase ahaatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray. goobta ayuu isa soo taagi jiray isaga oo hunguri ka hayo in geela meesha tuban wax uun laga siiyo. markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jeesjeesi jireen, welibana ugu heesi jireen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbo idmo.